gobolka Meru ee dalka Kenya oo qaadka dhanka kale gobolka Meru ee dalka Kenya oo qaadka looga soo dhoofin jiray Soomaaliya ayaa faqri xoogan laga la galay tan iyo markii dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay qaadkii Soomaaliya uga imaan jiray dhinaca dalka Kenya ganacsatada qaadka iyo beeraleyda Meru oo dhigay dibadbaxyo ballaaran ayaa waxa ay uga soo horjeedaan xayiraadda saaran qaadka ay Soomaaliya u dhoofin jireen oo la joojiyay tan iyo markii uu dilaacay cudurkan caalamka ku baahaya isla markaana afradaha aan ku haya labada dal ee COVID-19 sidoo kale ganacsatada ayaa ka dalbaday dawladooda inay wax ka qabato arrintaas iyagoo sheegay in qaadka la'aantiis magaalooyinkoodu ay iyagoo sheegay in qaadka la'aantiis ay faqrin doonaan isla markaana aysan ku noolaa karin maadaama lacag aad u fara badan ay ka soo geli jirtay qaadka ay u dhoofiyaan gudaha dalka Soomaaliya qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa sidoo kale tilmaamay inuu istaagay ganacsiga qaadka ee xaafadda Islii oo ay Soomaalidu ku badan tahay kadib markii lagu soo rogay bandow saameeyay isku socodka xaafadaasi ugu dambeyntii isbahaysiga ganacsatada daroogada beeraleyda ururada ganacsatada iyo kooxaha diimaha ee wadanka Kenya ayaa waxay u ololeynayaan inay ku guuleystaan dhoofinta alaabaha ay ka mid ka yihiin qaadka ee loo soo dhoofiyo dalka Soomaaliya mana jirto wax wada hadal ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan sidii qaadka loo fasaxi lahaa maadaama cudurkii wali uu ku sii baahayo isla markaana uu ku sii fidayo gudaha dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa lacag fara badan waxa uu ka soo galaa qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha aadan cad ee caasimadda Jamhuuriyadda ee Muqdisho ka degi jiray maalin walba diyaarado sida qaad fara badan oo laga keenay gudaha dalka Kenya kuwaas oo lagu qiyaasay in maalintiiba gudaha Soomaaliya ay geyn jireen qaad lacagtiisu dhan tahay $5 milyan